بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeeni dhabka hadal qaybtan waxaan kaga hadli doonaa ama aan ku eegi doonaa xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka Soomaaliya ayaynu eegi doonaa sida aad la socotaanba maalinta Jumcada oo ay berri inaga xigto waxa la cilaamiyay ama ay cilaamiyeen midowga musharaxiintu banaan bax ballaaran oo ay dadka reer Muqdisho dhowr iyo 10 degmo ee gobolka Banaadir isugu soo baxayaan isuguna imanayaan daljirka daasoon ee degmada Boondere halkaasi ayay madleen in la isugu yimaado isla markaasina banaan baxayaasha reer Muqdisho ay halkaasi dareenkooda ku muujiyaan waxa ay sheegeen in ay kala qayb gali doonaan banaan baxaasi dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Banaadir gaar ahaan caasimada Muqdisho hayeeshee dawladda federaalka Soomaaliya ama xukunka haatan jooga madaxweynaha xilkiisii dastuuriga ah oo dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dabcan la taliyaashiisa oo ka mid yahay taliyaha nabad sugidda Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa iyagana lagu soo waramayaa in ay arintaasi aad u saluugan yihiin sidii ay uga hortagi lahaayeen ay falowgeeda ku jiraan qorshayaal badan ayaa la dejiyay waxaana suuragal ah qorshayaashaasi qaybo ka mid in ay fulaan dadka la adeegsan doono ee inta badan madaxweynaha iyo dabcan la taliyaashiisu ay indhaha hore ka dhigan doonaan waxa lagu sheegayaa maamulka gobolka Banaadir si ay u hor istaagaan dadkaasi iyo isu soo baxooda sidoo kale waxaynu eegi doonaa shirka ka socda magaalada Baydhabo ee xarunta dawlad goboleedka Koonfur Galbeed yaa isugu yimid halkaasi maxaa laga wada hadlaya iyadana waynu eegi doonaa waxa jira dabcan xubno aan horay uga mid ahayn kuwii uu shaaciyay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo shirkaasi si weyn uga dhex muuqday iyadana balwaan yara dul istaagi doona waxa ila jooga saaxiibkay Jaamac Xasan Cabdullaahi ama Jaamac Galad oo ku soo dhaweynaya Jaamac barada ka waran inkastoo aynu xalay marka hadalay arintan haddana waxaad moodaa waa xiisad weyn oo taagan weey waxa laga yaabaa arintani inay rabshad ay isu bedesho macquul ma tahay banaan baxan haddii dawladda ay hor istaag inay ku samayso ay isku daydo in uu rabshada ka dhashaan bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore waxaan salaamayaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed meel kaste oo ay joogaan inta daawanaysa iyo inta aan daawanayninba waxaan leeyahay salaamu alaykum nuuro horta waa run oo de waxa weeye xamar hadda way karkaraysaa qolo walba madana dab ugu jira madanaha ma taqaan horta madana anu madana anu aqaanaa qolo walba madana dab ugu jira baalkan wax lagu sunto Soomaa ha xoolaha lagu sunto ya qolo walba dabka ugu jira marka de qolo walba teeda inay hirgeliso ya ka go'an qoladan waqtigii ka dhamaaday ama madaxweynihii hore iyo kooxdiisu waxa weeye waxay adeegsanayaan kaarar fara badan bay adeegsanayaan oo ay doonayaan in maartay dadka ay ku caburiyaan ilaa shalay iyo xalay waxay soo rogeen wax la yiraahdo coronavirus bay soo dalaceen dadkii ku wada rideen magaalada xamar ahayd oo dhan corona ku sii wada daayeen wilayeen xagga waxba sidana xagga waxba kan oo 5 baa dhimatay 10 baa la soo wada 150 buu ku dhacay yaani wasaaradda caafimaadka la hawl galiyay khalkhal bay abuurtay marka waa qayb kamida dagaalka la doonayo in maartay lagaga hortago shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho soo baxo in de cudurkaasina waxa la leeyahay moogtahay waa qayb kamida aaladaha la adeegsado yuu noqday hadda siyaasaddu noqday oo dawladii xogaa yar dhaqaale yaraan soo food saaro iyo tii maartay yar aragto xogaa shirshir iyo showr iyada ka dhan ah oo socda laba goorba waxa la dhihi corona haddii lacag la'aan dhacdo waxa la dhihi coronihi ba dadka waa lahayo maanta intaas soo dhacday xaggana sidan weeye oo adduunkii ba loo qeylino huuye soo carar baa la dhihi oo lacag la soo shubay qofkii calool xanuun ku dhacaba waxa la dhihi waa corona haya qoladii maaragtay xogaa siyaasad ahaan u aragtay in maaragtay xogaa waqtigu ka yar heelinayna coronahaas ay soo rogaan Muqdisho marka corona laga soo rogay wasaaradda caafimaadka gabadhii waa saacad loo soo istaajinaya ugu yaraan waxaan u malayn shalayto 10 goor waxdash iyadoo maartay kolba una corona sidana isgaabiya guryaha gala soo bixina sidan yeer waad garan corona ujeedada inuu yahay moogtahay marka waxaan leeyahay gabadha waad fiican tahay intii hore ee aan mudaharaadka ka horeysay yaa reeba halka inaad sii sheegto markii inta la dhaw mudaharaad lagu dhawaaqay inaad markii mudaharaadka lagu dhawaaqay adna aad corona ku dhawaaqdo corona iyo mudaharaadka isgarab socdaay
wax kala weey dadkuna caqli bay leeyihiin hadee marka waxaan maleynayaa in la isfahmay oo taa la isku fahmay corona waa run waa cudur jira dadka uma sakhirayno uma sahlayno uma dhahayno ma jiro waa jira oo maxaan ku yiraahdaa waa ka adduunku ka wada qayliyayo laakiin waxa weeye dadku way taxadarayaan waa in la taxadaro dawladuna waajibaadkeeda shaqo ee ay leedahay ee dhinaca caafimaadka ah waa inay qabsato ee aysan maaragtay ku meeraysanin maxaan ku yiraahdaa arrimaha siyaasadda oo wixii aan la siyaasadaynin marka dadka reer Muqdisho waxaan leenahay maadaama coronahaas aad loo warfinayo coronuhu kii aan naqaanay ma aha waa ku kala weey waa ku siyaasadaysan waa corona kala weey marka kaasi aan dhig loo dhigin kii aynu naqaanay ee caadiga ahaana ilaahayna ha naga hayo hana laga taxadaro oo maxaan ku yiraahdaa yaan maaragtay taladihin yaan la fududeysanin taaba horta yaan ka dhihla dhinacan kala dee waa run oo qoladan mucaaradku iyaguna dadaalkooda waa wataan labada qolana madana dab ugu jira waxaan filayaa bari maahan laba bari baa ka hadhay baan malinayaa jimciyo maanta hadday salaaso tahay wacdi khamiistan yaa inaga xiga marka inta uu abaabulku iska sii socdo shacabkana la sii wacyi geliyo ummaddu waxa ay xaq u leedahay iyo waxaysan xaq u lahaynna hal loo sheego isku day kaste oo lagu baajiyaa maxaan ku yiraahdaa mudaharaadkaasna waa duulaan lagu soo qaaday dimuqraadiyadda Soomaaliya caagaha yar ee ku taagneed ama intii yareeyay ay ku dhaqdhaqaaqaysay duulaan ka dhan u noqonaya loo aqoonsanayaa waana lala macaamili marka waxaan leenahay qoladan hadda joogto waqti in la isirtaago gobolka Banaadir kaalinta laga ka qaadanaya gobolka Banaadir uu isku day karaa gobolka Banaadir dadka ma laha mana aysan dooranin iyagu Umar Finish waxa weeye xaafadiisa xukumaa gurigiisa iyo caruurtiisa xukumaa markay xaqiiqda tagto xaaladdu waxa weeyaan ee sharci darro la isku dayo in wax lagu difaaco de nin waliba wuxuu yahay buu noqonayaa Umar Finish wuxuu noqonayaa Umar Finish buu noqonayaa gurigiisuna joogi soo garan dariiq sharci laakiin hadduu maro oo wada sharci uu isku dayo inuu wax ku maaragtay hor istaago waa sax laakiin maamul koox sharci darro iyo afduub ku haysata xaruntii dalka Soomaaliya looga talinayay haday isku dayda isaga afduubkii hadana inay u sii adeegsato oo ay dhahdo dadkaagii iyo deegaankaagii iyo bulshadaadii yaan adiga ku isticmaalayna Umar Finish horta wax loo keensaday baa waxay ahayd waxyaalaha noocana waynu ogsoonahay Umar Finish hogaamiye kooxeed buu ahaa maxaan ku yiraahdaa farmaajana markii uu talada dalka yimid wixii uu ugu horeeyay uu ka bilaabay waxay ahayd la dagaalanka waxa loogu yeeray maartay hogaamiye kooxeedyada markuu yimidna inuu hogaamiye kooxeedyada la dagaalamo oo hogaamiye kooxeed oo dhan ma arki karo iyo nin siyaasadda maartay igaga anteena dheeraan kara haddana kan dib loo soo celiyo waxa weeye yaa si fiican maartay dadka igu caburin kara oo aan u isticmaali karaa weey in la isticmaalo baa loo keenay meeshan aqoon iyo aragti siyaasadeed iyo maxaan ku yiraahdaa waxtar uu bulshada u leeyahay looma keenin kaliya inuu farmaajo waxtar u leeyahay loo keenay dadkuna way og yihiin qof walibana waa og yahay marka farmaajo isagoo sharci ku joogo laakiin difaaci kara Umar Finish ama maamulka gobolka Banaadir uu difaaci kara laakiin isagoo sharci darro ku jooga oo dastuurkii dalka dhabarka ka tuuray oo dawladnimadii Soomaaliya ku tuntay oo hanaankii iyo haykalkii siyaasadeed ee lagu soo doortay gabi ahaanba inkiray cidina kuma xajin karta meesha sidaa daraadeed tallaabo kaste oo ay qaado kooxdan waqtigeedii dhamaaday ama Umar Finish ha ahaado ama farmaajo ha ahaado ama Fahad ha ahaado hay'adihii aan loogu talagelin siyaasadda inay galaan ba siyaasad ka shaqeynaya maamulka gobolka Banaadir waa maamul ma aha maxaan ku yiraahdaa siyaasad ma aha يعني maamul siyaasadeed oo ku yimid maxaan ku dhahay nidaam siyaasi oo ku yimid waa magacaabis madaxweyne waa maamul arrimo maamul baa loo igmaday arrimihii maamulka loo igmaday iyo siyaasadda inuu inta kala saaro isagu uu ku ekaado dadkan amnigooda sidii loo sugi lahaa si nabadgelyo ay ugu banaan bixi lahaayeen waxyaalaha ka mamnuuca waxa la rabaa maamulka gobolka Banaadir inta baabuur la soo adeegsado idaacad baa ileeyihiin baan filayaa idaacadda in bulshada lagala hadlo baabuur mikrafoon la soo saaro loo sheega dadka waxa ka reeban inta ay ku guda jiraan mudaharaadka iyo waxa u banaan inaysan jidadka qashin dhigin oo ina ku gubin taayirra inaan la gubin guryaha inaan la jajabinin inaan dhagaxaan la tuurin ciidamada amnigu inay ciidamadoodii yihiin ee ay la shaqeeyaan oo cid kasta oo dhibaato keeni karta oo ku soo dhaxdhuumanaysa in dadku ay kala shaqeeyaan amniga in si wada jir ah ciidanka loogala shaqeeyo inta mudaharaad socdo waxaas la rabaa dadka in loo sheego mooyaane in la is hortaago shaqada gobolka Banaadir ma aha shaqada gobolka Banaadir Umar Maxamed Maxamuud Finish waxa lagu xasuustaa dhawaan mar uu khudbad jeedinayay in uu qoladan mucaaradka ku eedeeyeen wax uu ku tilmaamay rag
diinta islaamku ay banaynayso hadday sidan ku sii socdo aayada quraan uu soo dalishaday aayada quraan uu soo dalishaday hal lagu jihaado yiri hana la iska celiyo kuwii uu sidaa lahaa banaanbax bay qaban qaabinayaan dadkii isagu xukumay degmooyinka Dayneele iyo Yaaqshiid iyo maaragtay Huriwa iyo Boondheeri iyo Cabdilcasiis iyo maaragtay ku noolaaba la yiri dadka kala taqaan soo baxa la yiri idaacadaha ka maqshay ma hadu iska day waa qanaa kaliya bas bas ciyaar banaadir tahay ku noolaa yaa la yiri soo baxa hadda miyaysan ahayn marka jihaadku sheegayay in ay hadda ay u banaan tahay oo ku jihaadaad horta ma jeclay inaan qof anu wax ka sheego shakhsiyadiisa laakiin aqliga Umar Finish baa intaas ku egba hal jihaadadaas iyo hal dilo aqli kale oo haya male waana intii loo doortay loogu talagalay in dadkiisa lagu laayo marka hadduu Umar Finish ku jihaadayo Xasan Sheekh waynu arkaynaa ama Shariif Sheekh Axmed ku jihaadayo waynu arkaynaa marka waxa weeye rag badan oo kale oo aaminsan in lagu jihaado dadkaas yaa jiro Cali Maxamed Geedi baa kamid ah maxaan ku leeyahay Salaam Cali Jalla kamid ah waa koox weeye kii maalinka dawladda la qarxinayay isna ka badbaadi jiray meelada loo dhigay Cali Wardhiigle wax noocaas yaa ku jira waa group noocaas oo maxaan ku leeyahay fil Soomaaliya maxaad geed cidna waxa dirsado meesha soo jooga ma deeso waa albax weeye waa nin barkada badan ka soo cabay marka isaga wax badan buu xasuustaa oo wuxuu og yahay in farmaajo meesha sharci darro ku joogana waa og yahay oo uusan nidaam ku joogin haddana wax badan baa kaga xidhan oo waxa weeye waa wax badan buu xeerinayaa marka sidaa daraadeed kuwan aan waxba xeerinayn meesha ugu dambeysay ka bilaabaya hela hal jihaad waa bartii ugu dambeysay meel loo dhaafo male marka oo de qof waxa weeye waa markii diinta islaamka laga hadlayo waa martabada ugu sareysa ee qofka muslimka ah uu ka gaaro diinta islaamka waa jihaadka weey waa baarkuraadka waxa weeyaan diinta weeyaan oo qofku haduu jihaad galo waxa weey meeshii ugu sareysay ayuu gaaray martabad kale oo u dhiman ma jirto marka in maaragtay qof kasta oo aragtidiisa ka soo horjeeda meesha ugu sareeyay waxa shaqo aragtidiisa wuxuu ka turjumayaa ama maaragtay farmaajo muxuu jecel yahay dadkaas in la dagaalamo maxaa marka farmaajo lagu qancin karaa waa meesha ugu dambaysa in laga bilaabo wajeed in lagu jihaado Xasan Sheekh Shariif Cabdiraxmaan Cabdishakuur dadka noocaasa in lagu wada jihaado iyo marka isaga diintiisa u banaynaysa ma aha diinta islaamka aad baad mahadsan tahay jamcu xogo kale oo soo baxaya waxay sheegayaan in midowga musharaxiinta dabcan iyagu ku baaqay oo aad moodo inay xogo badan hayaan sababtoo waxaad ka garanaysaa markay ku baaqeen mudaharaad kadib waa kii xalay aynu sii daynay la wadaagnay bulshada Daahir Maxamuud Geela afayeenka midowga musharaxiinta oo saxaafadda la hadlaya fariin u diray ciidamada Cabdiraxmaan Cabdishakuur baa isaga maanta hadlay waxa uu ka hadlay iyadana isla arinta waxaad moodaa culays badan baa iyaga laftoodu dareemayaan xogaha qaar waxay leeyihiin midowga musharaxiintu ciidamo beeleedyo ayay soo ururiyeen meelaha maaragtay shabeellooyinka iyo meelo kale oo banaadir ka mid iyo degmooyinka gobolka waxba ciidamo laga soo ururiyay ciidamadaasi waxa loogu talagalay dawladdu haday is hortaagta banaanbaxaasi in xabad la rido laba dagaalamo arintaas sidoo aragtaa inay jiritaankaasi waa horta qasab weeyaan waa qasab laakiin arin loo baahan yahay marka xaqiiqda laga hadlayo sababta dawladdu waxa ay wax ku caburinayso ee ay wax ku cadaadinayso Fahad Yaasiin isagoo macawis qabo xamar yimid farmaajana isagoo shaari sarwaal qabo yimid maxaan ku leeyahay dadka la midka ah ee meesha hadda jooga ee ka atooreynayana nin walba isagoo kaliya oo socda oo aan waxba wadanin buu yimid dal iyo dawlad dhisan oo laga soo shaqeeyay oo ciidan iyo maamul iyo maaragtay haykalkii dawliga ah dhidibada ay u taagan yihiin baan lagu wareejiyay haykalkii dawliga ahaa ee dhan walba ka dhisnaa bilowba ha ahaadee ayay rabaan inay si khaldan u adeegsadaan cidda la adeegsanaya marka ma aha maxaan ku yiraahdaa shacab ma aha waa ciidan weeyaan ciidankuna qoriyuu wataa ciidanka qoriga wata si sharci darro ah hadii loo isticmaalo de qori baa ka celiya waa xaq weeyaan inaad naftaada iyo hantidaada iyo dalkaaga iyo dadkaaga aad ka difaacdo daalimiinta ku soo maaragtay duushay ee rabta inay xoog iyo indhacadays ku joogaan ama ku qabsadaan taladii dalka iyaguna waa la mid weey nin kasta oo isku day dadkan inuu xukumo oo sifa aan sharci ahayn ku xukumo waxa weeyaan waa la iska celin hadii wanaaga iyo sharciga iyo nidaamku uu shaqeyn waayo farmaajo waxa fiican inuu isweydiyo adigu talada maxad ku timid isaga talada loo dhiibay talada haduu qori caaradii ku yimid
oo uu xoog iyo indhacadays ku qabsaday oo intuu ka adkaaday rag oo dhan oo uu sidii maaragtay askaaxda ka dhigay oo sidii balkii qolo walba uu dhinac u baljeeray oo kursiga ku fadhiistay oo uu qori caaradii ku yimid haddana uu ku joogo ha ku sii joogo haddiise doorasho uu ku yimid iyo talo Soomaali inta isugu timid la isugu maaragtay lagu tartamay lagu maaragtay laga ololeystay nin waliba wuxuu sheegi karay uu sheegay iyadoon af dhaafin taladii Soomaaliya uu kula wareegay go'aankii baarlamaankii shacabka Soomaaliyeed uu soo doortay ama beelaha Soomaaliyeed ay soo doorteen shacab ma soo dooran uu ku yimid waxa weeyaan waa inuu sidii uu ku yimid uu ku baxo weey maanta farmaajo sharci kuma jooga dalka xoog buu ku jooga iyo indhacadays waxa aan xooga iyo indhacadays ka ahayn oo uu ku baxayana ma jirto Soomaali garan laakiin waxa la yiri shabshablana ku day ana og farmaajo wuxuu yahay ana og inuusan aqli maaragtay to maanta ku filan uusan lahayn oo uu ku garto wixii meesha uu ku yimid ana haddana og maaragtay dhibaatada ka dhalan karta waxa maaragtay to ka dhasha isku dhijinta kursiga waxaan dhihi lahaa shabshablana ha lagu dayo horta nabadgeliyo kolka hore waxa lagu raadiyo dadku ha soo baxaan habeen iyo maalin barre Muqdisho banaanka soo istaagaan shacabka kale ee Soomaaliyeed ee gobolada kale ee dalka ku dhaqan haday ku dhaqan yihiin maxaan ku idhaahdaa to Hirshabeelle haday ku dhaqan yihiin Koonfur Galbeed haday ku dhaqan yihiin Jubbaland Puntland iyaguna si lamid ah ha garab istaagaan walaalahooda reer Muqdisho oo ha ugu hiiliyaan taageero iyo banaanbax iyo mudaharaad waa in shacabka Soomaaliyeed oo dhan ay isu soo baxaan farmaajo hadduu xoog ku yimid hal ogaado haddii uu ku yimid doorashana adeer kuma rabnayna dhaaf waan shacabka Soomaaliyeed ay dhahaan ma aha in loo joojiyo koox beeri qaatiyaal oo calooshooda ciyaara oo aan magacooda iyo maxaan ku idhaahdaa meel ay u socdaan midna garanaynin in maaragtay taladii dalka Soomaaliyeed in maaragtay loo daayo ma aha muhiimaddu waxay tahay iyadoo aan dib dhicin oo dhiig daadanin kolka hore in lagu khasbanaado mudaharaad salmi ah in loo soo baxo shacabka Soomaaliyeed oo dhan ma aha Muqdisho waa in Kismaayo laga mudaharaado waa in maxaan ku idhaahdaa Garowe iyo Boosaaso laga mudaharaado iyo Gaalkacyo waa in Dhuuso Mareeb iyo Cadaado laga mudaharaado waa in Jowhar iyo Beledweyne laga mudaharaado waa in Xudur iyo Baydhabo iyo Waajid iyadana laga mudaharaado waa in maxaan ku idhaahdaa Marka iyo Baraawe iyo Afgooye iyadana laga mudaharaado waa in Balcad iyo Caliyaalo iyo maxaan ku idhaahdaa meel walba iyadana laga mudaharaado oo la isku soo baxa weeyaan mudaharaadka waa in lagu taageero shacabka reer Muqdisho yaani culayska maanta ay dareemayaan ay rabaan inay kooxdan maafiyada ah isaga dulqaadaan waa in lagu taageero weey dalkii Soomaaliya koox aan u qalmin yaa ku habsatay marka muhiimaddu waxay tahay kooxdan sida ugu wanaagsan in loola macaamilo aad bad maasanta ugu dambeyn jaamac Baydhabo maxaa ka socda Baydhabo waynu ogeyn oo waa tii guddi uu magacaabay ra'iisul wasaaruhu guddiga ra'iisul wasaaruhu uu magacaabay 14 xubnood baa ahayn oo wasiir ah shirkiina isaga shalayto u furay oo maxaan ku idhaahdaa aalada Zoom ka jeclaan uu ugu furay shirki halkaas ka socda weli wax natiijo ah oo ka soo baxday ma ay jiraan balse wax laga sugahayo haba yaraatee ma jirto horta shirkada waxaan wax looga sugaynin ra'iisul wasaaruhu wuxuu magacaabay 14 xubnood Soomaaliyeed wasiir ahaan shirka waxa dhex fadhiya Cabdi Cali Raage oo la taliyay dhinaca siyaasadda iyo arrimaha doorashooyinka ee farmaajo ah waxa qaska iyo labka Soomaaliya ka socda oo dhanna ninka isagu sababta u awey oo maxaan ku idhaahdaa to farmaajo wa fahatumiya ما فهذا حاب نقول بركي عبد على الهاي ولا حاب نقول هاي عروب نقول حقيقة ذلك في الصومالي إنك حكومة هو عبد على الراجوي waxaan kala oo dhan farmaajo iyo hadda farmaajo dadka soo doortay moogtay wasaas oo baarlamaanka Soomaaliya doortay fahadna wuxuu ahaa milkiilaha farmaajo ahaa oo ninkii farmaajo lacag ku soo saaray lacagta ku soo saaray buu ahaa halkaas ka soo galaya laakiin Cabdi Cali Raage waxa weeyaan waa siyaasi meelo badan maartay ka soo cabay waa nin maxaan ku leeyahay anteenadiisa iyo hawlihiisu ay aad u tira badan yihiin filmadan farmaajahan laga kari ninka la kari la yahay farmaajo meesha ku haya waa isaga haddana meeshirkan wax kale umuuna tagin waxa weeyaan inuu kala tuuro u tagay meesha wax ka soo baxaya ma haba yaraatee marka talada dalka Soomaaliya maya kuma jirin waa dhaxji waliba dhex saaxdaba meesha dad ma soo muxuu ka soo dhacday marka dad ku jir tama waa marka meesha xukuumada ay u shidan tahayba
xaqiiqada laga hadlaa marka waxa laga mas'uuliyad farmaajo aniga bilaash baan waxa xageynayna dad horey waxaan ku yiri dad xabaalanayaal yiraahdo ama daaha gadaashiisa ku jira oo hawshan iyagu maxaan ku farmaajana daqiiqad ula soo hadlaya farmaajo intii markii la joogay dhuusa mareeb meesha la yiraahdo intaas oo goorbo iyo heshiis galay isla markiiba haddana waxba kama jiraan baa la heshiiskii soo garan عبد علي الراجنا أنت محمد أحمد مدوبة شو اسمه دجالبي مركز أحمد مدوبة مش جيستي وها سواء قرن ها محمد دقاليه سياح البكوب بحية أحمد مدوبة ويسكسوا عائلي هذا أنا بحاول ماشي وحوجه على الدجال كدني يا أحمد مدوبة وأنا من سنة هاي أنا أركت كذا أنقبه هدي وسن عبد علي الراجعين واحد بدن إني فضان لهاين لكن منك Soomaalida kalena waa ina taageersan tahay labadan maxaan ku yiraahdaa midna Imaaraadka u shaqeeyo midna Kenya u shaqeeyo ka taqalusi kara miyaan u joojinaynaa marba hadii galmudugna aan haysano Hirshabeellana aan haysano galbeedkii koonfureedna aan haysano gobolkii Banaadirna aan haysano xildhibaanadii Hargeysa maxaan ku yiraahdaa matali lahaana aan iyagana aan haysano ma labadan sakraadka aan u joojinaynaa labadan aniga igu daabli wax walba oo kula yimaadaan adigu diid farmaajo آيات القرآن هذي سود دليليان سيدا ذا بحمد مغلن آيات القرآن وأحمد مذوبة كتمد يا آيات القرآن هو الدني كتمد وهم مغلن ها مركب وحوه مرحلة هو مالها مارك تايت مرق وكتشر أما حرق مرنكو وكتاجن يهويان تذكر سومالياتنا واحد بدنكم برارو سنة ما دون يعني واحد أنا سير رحلة عن سيود لكن حقيقيا كسومو قشة عبد على الراجع وكسومو قد شركة بايدبو وفشل هرتيوي سببتها حبناها ماشي تشوجا عقلي كوتشوغان ولا غرانيا او مغعابيس رئيس الوزراء كوتشوغي اساو رئيس الوزراء لما تليو او انك رئيس الوزراء سو مغعابay Soomaaliya garan meesha muxuu ku tagay ninkii deefilla Soomaaliya ba iska lahaa ee milkiilaha ka ahaa yaa baydhaba fadhiya farmaajana wixii uu Cabdi Cali Raad u geeyo ku khasban yahay hadda haduu dhaho isaga tag meesha hatta boorsada kama qaadanayo taa confirm aad baad mahadsan tahay jaamac galada ayuu kaasi hadda wadayaal halka aan ku joojinay barnaamijkaasi kooban ee aan kaga warramaynay barnaamijkaasi magaalada Muqdisho 2 maalmood kadib la isu diyaarinayo oo dabcan khalkhalkiisa wata iyo dabcan isurtaaga la filayo inay dawladdu ku samayso waxyaabaha ka dhalan kara ayaynu maaragtay barnaamijka kaga hadlaynay intaan markale kulmi doono fi amaanillah